soo dhawaada barnaamijkeeni waa kuma ama waa tuma iyadoo ay mar walba ku xiran tahay qofkaanu waraysanayno inta badan waxaanu ku waraysanaa barnaamijka shakhsiyaadka caanka ah oo aanu jecelnahay bulshadu inay ka ogaato noloshooda dhabta inta ay iminka ka ogyihiin in ka badan si ay taageerayaashii dadku ay aad ugu soo dhawaadaan markaa caanka caawa barnaamijkan waxaa igu dhigtay boqor Soomaaliyeed oo iyadu ah abwaanad laakiin duruufo kala duwan noloshu ay ka soo markay yaraanteedii soo martay hal abuur ah si weyna Soomaalida ay u taqaano waxaadna isweydiinaysaan kolow gabadhaas waa tuma inta aan idinkaga dhicin soo dhaweynin waxaan idiin sheegay barnaamijkan inaad ku ogaan doontaan waxyaalo fara badan oo aadan ku ogeyn gabadhan dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed bal marka hore aan soo yara dhaweyno oo iyadu maaragtay aan aragtaan si aanu wax uga ogaano qofka ay tahay isla marhaantaana u guda galno mawduuceena caawa oo aan jeclahay in badan idinka mideen idin xiise gelin doono aan soo dhaweeyo ismahaan oo loo yaqaano ismahaan araweela soo dhawow عبد الحميد بدمات ستة ولا لون دوهاي وأقصده هنا يا واحد جعلها يهدي لها إلى هذو إن ماركتي بل قفك أتايا وحكوغا مركا waxaan rabaa inaan dib ku yara celiyo inta aanan u soo gudbinin suugaantii iyo shukaansigii iyo xaaladuhu meeshay marayaan iyo maaragtay waxyaalo fara badan oo jeclaan wax kaa weydiiyo waxaa ka mid ah yaraantaadii in aad adigoo inan aad iyo aad u yara ka soo tagtay gobolka Joolo ee Soomaali galbeed aad iyo aad waa gartay bal noloshii hore ee reemiyiga maxaad ka xasuustaa والله الحمد لله ولا لون ولا حسوستا نولل dhimaan karay ma aha waa nolol aan ku dhashay ku yar barbaaro madaxa ku qaaday marka waxaan ka xasuusan ma jirto aad baan garanayaa de kolay long time bay ahayd hadana waan xasuustaa waa gartay dabcan noloshaas inkastoo ay ahayd noloshii markaas ay adigu aad ku soo barbaartay haddana ma ahayn nolol aad ku qaacsan tahay oo waxaad doonaysay inaad ka soo tagtid noloshaas laakiin waxay aasaas u ahayd qofka maanta aad tahay aad iyo aad walaalo horta Soomaalidu waxay ku maamadaan niman dul marin dhaaya ma lahan noloshaas haddii aanan yani ka soo tagi lahayna maanta halkan ma joogeen oo heerkan ma joogeen oo ishaan iyo sidaan bulshada u taqaana lama arkeen marka anoo yar baan maxaa loo dhan ii sheegay ka soo kacay oon magaalada soo galay runtii de wax badan kolley waa dareemaysaa gabar reerkoodii kasoo timid oo magaalada timid oo hooyadii aabeed magaalada joogin oo dad kaleeto iyo environment kale iyo dad kaleeto bee'a kaleeto ee magaalada say u dhaqmaan timaaday waa dareemi karaysaa xaaladaheeda marka dee noloshu way fara badnayd oo way casharo badnayd waa laga nool yahay waa gartay markaad soo tegaysay imse jir baad ahayd ismaanay walaalo qiyaasatan waxaan malaynayaa waxaan jiray haddaan ku bato 11 sano 11 sano jirtaa miya u horreysay oo timatee bay ahayd oo weyn walaalo horta koodii waxaan imi magaalada Gaalkacyo xaggaas baan xoogaa jooga habeertii baan la joogay iskuulkaan ku dhigtay waxaa loo dhanay kadibna waxaa walaalkayga weyn baa wuxuu ii tahay xaggan Ismaayaan maartay intii ugu badnay noloshayda joogay oo iskuulka ku dhigtay marka walaalkay deer buu lahaayo asagii gabadhii way isyar fureen marka walaalkayna uu iska yar maartay waa dareemaysaa weliba xaggan hooyada isku aabun baan ahay ninkasoo walaalkay qaali yahay marka magaaladii baa waa laygu yar dhexsiidaayo waad garanaysaa marka xaafadaan iskala noolaa waxna waan baran jiro inaan waxbarashada aad u jecel baan ahaa marka de waa dareemaysaa gamaraan hooyadeed la joogin aabaheedna la joogin ehel kaleetana meesha aanay jooginin markaas waxaan runtii la noolaa dee reer islaameed qabiil waxaa lama garanayno reer un baan la noolaa isfahanay marka iskuulna waan dhigan jiray alxamdulilah waan xasuustaa dee gurigan aad uga shaqayn jiray waad garanaysaa weliba inan hooyadeed la jooga waxaa lagu leeyahay nayaa shaqada qabo waxay wax walba sameen marka shaqada waan qaban jiray xaafadana aad baan kaga shaqayn jiray waxbarashadana waan aadi jiray runtii marar badan ayadoon yani cidna ii ogeyn inaan xanuunsanayo inaan waxbarashada yani si kale xaaladda u jirto in dee waa dareemaysaa marka
mar badan waa maxaa la oranayay sheegay markaan iskuulkan yani inta ana xiisada ka daahsan baa waxa lagu oran jiray ma karisay qadadii ma baxaysay ilaa qadadii karis dabeeto dadam baan leeyahay oo isma waali karayo ilaa reerka hoygayga iyo noloshaydii kala waan ku haystaa xataa iskuulka iga bixiya marka maxaa la oranayay sheegay qadadii baan kariyaa reerka hadday doonaan abuurka u joogtay ilmihii baan maaragtay cuntadii siiyaa kadib baan maxaa la oranaya anaan qadayn haddaan doono ila waan degdegsanahay soomaalida waxay tidhahdaa gacan gadaal ka baqayso hore waxuma goyso waan cararaa xiisadii baan tagaa markaa macalinkuna isku keysoo taagana xagaad ku maqnayd liisiyad baa tahay bannaankayga tag markaaba aniga dhawruga iyo hiibitaan iyo ciga ilaa reerkan iyo ama noloshan ka baxa marka waxaan isku dhiirigelin jiray inaan mar waxbarashada dhammayn doono shaqaysan doono alxamdulilah heerkan maanta joogan aan soo gaari doono dee waan soo gaaray oo way dhacday marka runtii mar badan waxaa dhici jirtay buugta maan heli jirin oo kaleeto marka waxaa la odhan jiray haddaad berri dharka dhaqday ama sidaa wax u qabatid buugta laguu soo iibinaya dee dan baan leeyahay sidii makiinadii oo kala tuuri jiray marka waa nolol runtii aad oo adag laakiin alxamdulilah waan ka noolahay waana haddaan ayada arki lahayn ma arki lahayn waayo aragnimadii xirfadda maanta aan leeyahay runtii waan mahadinayaa inaan noloshaas adag soo maray sababta wax badan baan ka faa'iiday waxaa jirtay reerkaasu inaysan marnaba ka aysan aad uga mahad celin jirinin shaqada aad haysid iyo duruufta ku nooshahay iyo adigoo weliba ka walwalaya inaadan helinin iskuulkiigii oo markaa iskuulka lagaa soo cayriyo oo markaa lagu yidhaahdo ma bixin kartid xilli dambe ay ku siin jireen lacagta hawlo fara badan ay kugu qabsan jireen gabdho fara badan baa maanta iyo kuwo ka liita ku nool aad iyo aad horta walaalo maxaa la oranayay sheegay duruuftu waa wax maxaa la dhahayay sheegay waxyaalo badan kugu khasbi karaysa runtii igamaysa mahad celin jirin waxaan qabanayo waxaa kala weynay dabcan soomaalida waad iska dareemaysaa marka qofku uusan lahayn qof looga leexdo la yidhaahdo wariyaa ilmaha maxaad ka rabtaa ma qof maxaad ka rabtaa kaama leexanaya marka yani waxay iyagu fiirsanayeen inay iga bixinayaan iskuulkaas oo kaleeto weliba ay igu adkaynayaan taymka mararka qaarkood yani xiisada bisha 20-keeda kale lacagta la iga bixin jiray haddana saasay tahay cidna igama mahad celin jirin laakiin waan qanacsanaha sababta waxaa la yidhi dee adoona waxba haysanin la isma waalo moogta aad baan ugu qanacsanaa inaan intaas helay oo ay farxad ii tahay inaan iskuulka laakiin aad baan u dadaali jiray habeenkiiban casharkayga si wacan u akhrisan jiray sababtaa ma haysan waddo kale aan isku dhiirigeliya isagaan haysan inaan ka baxayo kadibna aan shaqo helayo taaba waxay ahayd yani focuska ugu koowaad aan haysto marka alxamdulilah noloshaas waa la soo maray weliba reerkii waan raadiyey markaan weynaaday waan xiriiriyaa qaarkood warkaasa markaad xiriirisay oo ay ku arkeen adigoo gabar weyn oo gashaantiya noqday oo dunida lagaa yaqaano waad la kulantay oo tiri waa idinkaga mahad celinayaa duruuftii iyo hawshii aad iga soo marteen aniga laftigaygu ma yaraysaninoo waa soo dadaalay maxay ku yidhahdeen markay ku arkeen والله عبد الحافظ horta weynaadaaba wanaagsan baa la yidhi qofku markuu weynaado wanaagsan sidoo hore ma aha si wacan baa layla dhaqmayo dee xilligan yaraa maayaha sidaas 10 magac baa lay bixin jiray laakiin hadda waxaa la yidhahaa allaynantii quruxda badnayd maasha allah annaga sidaa kusoo yeelnay gabadheennii oo kalaa tahay alxamdulilah waanan u mahad celinayaa laakiin waxaan leeyahay weynaadaaba wanaagsan waa heer la soo gaaray waa gartay soo weynaatay oo xanaqaaday oo gabar gashaanti oo adiga noqday gabarna hadday cabaari joogto oo gashaanti ay noqoto waxaa dhacda inay wiilashu ay maagaan ka baxsan waayaan waxaa jirta sheeko cajaa'ib oo adiga iyo keenta oo ku yiri aan ismasaafaysan markuu quruxdaada iyo joogaaga iyo jamaalkaaga ka helay laakiin arrintii kale ka baxday arrintaas musay ku bilaabatay nooga dhac عبد الحافظ وما تنتا فرتا واي هاي أنا قلت قاعد حسوس بيقول لها رمسي أنا حلقة سكول كده مية هاي تدبي تنسى كربانة ها ولي بالله بلوده ردنا قوي إنه إنت إذا ما نسكرين لك مركا واحد عدي ويل بمدة بدن بيقول الوريجي ظروفنا وإن أنت هاي رأسك ظروف يسمى عن الدرير كودنا عن لجوء marka nayntiga wuxuu yiraahdaa walaal ismaanay waan ka helay waan ku rabaa in adigu in badan ugu celcelinayay san ku waayahay waan ku soo dhaweynay walaal waan sheekaysanayna marka wuxuu igu yiri waxaan rabaa walaal inaan ku guursado
maadaama reerkiina aysan halkan joogin aabbaha iyo hooyada iyo walaalahaana aanay joogin waxaan doonayaa waxa inaan samayno la yidhaahdo qodbasiro magaalada looga yaqaano miyigana looga yaqaano masaafada marka waxaan rabaa inaan arrinkaan samayno adigana aad iga yeeshid marka waan fakeray aniga marka noloshaas iskuulka waan dhameeyey jaamacad baan rabaa cid kale oo jaamacad iga bixinaysana ma jirto waxaan marka hamigayga ku jirta inaan xamar imaado oo qayb faamilka ka mid ah ay degan yihiin oo halkaa imaado jaamacadda yani kolley qaab un u bilowdo marka waan fakeray waxaan is iri inanka haddaad haya ku jiraan waxbaa kaaga suurtagelaya laakiin haddaad ku soo adkaysid waxba kuuma suurtagelaya marka waxaan ku iri waa yahay waa gartay marka guurka soo maaha soo diyaari waa gartay 17 jir markaa waxaan ku yiri soo diyaari waan ku yiri hayuu igu yiri intaanu bixin marka intaanu iga tagin wuxuu igu yiri maadaama aan isguursanayna xaaskayga noqonaysid anu marka waan ku qoslay dhooshan ku qoslay sababta inaan nin raacin waan soo gay moogtahay asaas marka waxaan ku yiri maadaama aan isguursanayno xaaskayga noqonaysid lacag baan ku siinayaa $150 ah ku soo shoobin garayso kadibna maxaa loo dhanayaa Maxamed gaarigaygaanu qaadanaynaa culimadan ka haysanayna waa la igu kaamihirinayaa reerkana gadaal baan kaga sheegaynaa waa gartay waayahay baan ku yiri Cabdixaafid oo aan dib kugu celiyay wiilka reer ahaan isku reer baan nahay waan isku dhownahay markaa waa gartay dabeeto hayaan ku yiri lacagtii bisiiyay lacagtii markuu siiyaan ku yiri Ilaahay baa ka soo qaaday fag baan iriyo waxaan tagay baabuurta Kismaayo Muqdisho meesha ka baxaan astaankan tagay waxaan ku yiri walaal gaari baxay ma la helayaa haaba la igu yiri meeqa lagu raacaa $30 lacag lagu raacaa baa la igu yiri $30 baan shubay gurigaan ku soo laabtay buugteedii iyo boorsadeedii oo dhiga yaalay baan jam ka siistay inantiina waxaan ku yiri walaal waan baxayaa sidaa hayla ila socdaan ku yiri waa mahadsantihiin bas hayaa la igu yiri waa la isagoontiyay waa la macsalaameeyay gaarigaygu baan soo raacay mobilka meel tuulooyina la soo maray markaa dabeetuna inaan ku soo wicin telefonka markaan falay baan saartay yani waan xiray kulligiisba kadib markii meel cunto la yimaado ama meel yani dadku ku degayaan la yimaado aan ka qaadaa lacagtaan ka dirsadaa danahaygaan kushadaa gaarigayga iskaga yarlaabtaa marka balaayay bay soo socday gartay waxaa ka dhacay meesha سنة سعودية مركب حنيمي ولاش جبر وعبرت الشيء حلو توقتي مركب جبر ده زوج حيسي نقول جدا نماذج سيدي بان شكو إمادة الحمد لله تفهم الكين ونسلو وده شريفنا عندي حالات ويش بدشة وكتب شقة استهلا يو مقالة دي ناس كقولوا ناقوين بنقضي جامعات دي بنقلاوا نسيس تعضي تتجيبه هلكم بسوق جاري وقرتي وحنا وسوق راعو ويري markaan xamar imid oo nastay ayuu igu yiri mahade ilan waa loo sheegay inaan tagay oo xaggi tagay oo dadku mootay warku waa aad u heeraya laakiin walaal beenta hada igu sheegtay ismaan intuu soo wacay sidaas baa tahay ma ii baan ku yiri walaal laakiin aniga waxaan ku yiri horta inaan kowdi ku guursado ma rabin baan ku yiri marka labaadna arrin baa iga xayirnay xoolaha reerkana waa la wada leeyahay ku libraada abba iyo hooyada xoolay leeyihiin gadaal laga siinayaa oo ku caadi iska dhigay sidaas ku dhamaan waa gartay ay marka waxaad tiri xoolihiini waa helaysaa marka waxaad tiri xoolihiini waa helaysaa laakiin aniga saaqooyin guur midna kuma jiro أنا ولد ما فكرين أدون كي قاعد حافظ وما فكرين أنا إني أسكت بورصلان ريال كنا جوجي مركب حلورنا يجي سلا كل ما تي أنا كجد الهو إما ده حمر ودوان وانسكون ميدو بعد دواين وادي أنا هنا سقط هنا تسقط في الصدر بتاعم كورني يوم لكن لا بعقلي يه وقرت كبر بادي هذه كبر بادي وقرت
dabcan waxa weeye soomaalida hore anigu sideetimadii markaan dalkii joognay waxaa jirtay saas walaa gabdhaha loo masaafaysan jiray oo ama khudbufraad loola bixi jiray waxaa jirtay meel la oran jiray hees waxaa jirtay la oran jiray geed shambow oo meel la taga ee magaalada muqdisho ka baxsan marka ninku wuxuu islahaa kismaayo meel ka baxsan la aado maaragtay xaaladaada halkaa kusoo dhamayso والله وريبه هير كنغن waxay moodayeen yani waqtigaas meeshna aad bay u fogeyd moogtahay heer kanaguna daro koonfur ma aan weligoodna xataa dadkoonagu ma imaadaan reer koonfur meelahaas yani xaggaas anagu dowlad deegaankan iska degnaa markan halkaas galayba showmalaha waa layga samra soo noqodkii dalban xamar imid baa waxa la yiraahdaa la inantii way soo noqoto maasha Allah marka aduga ila sii kulaan lahaa layma soo raadsheen laguma soo raadiyeen waxa weeye waxa la oran jiray waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan ninkaan qorshuu dejistay jacayl baa haya gabadha yara soo baxday oo quruxda badan buu arkay wuxuu yiri dhaafin adna maskaxda waxa kaaga qafilan inaan reerkiinu raalli ka hayna ha guursan wax baro oo tarla oo goolkeeda iyo riyadeeda ka dhabeeya noqo marka mid horeba war isku inaan hayn laakiin lacagtaas hadduu soo kursiin lahayd xaaladdu si kale caaw ahaan lahayd والله waxa laga yaabaa horta ilaahay baa og oo qofka meeshu marinaya laakiin waxa laga yaabaa inuu faradaha ilaahay ii soo diray hadda kismaayaan iska yar dhaxtaagnaa la jaamacadna ma bilaa waa gartay insha Allah waxaan rabaa inaan ka soo tago halkaas oon soo aado waxaad aad caan ugu tahay suugaanta gabar yar baa tahay da'yar reerkoodii ka soo tagtay dalkaaga iyo dadkaaga adoo ku jira haddana gabdhuhu wiilasha lama ahanoo waxay marka kasta ku habboon yihiin walaalo iyo aabbo iyo adeer iyo inay garab joogaan adigoo duruufta adag ku dhex jiray haddana waxayd ogaatay inaad hal abuur leedahay xaggee bay hal abuurkaan uu ka bilowday uuna kaaga yimid goormaad soo ogaatay cabdi xaafid walaalo horta hal abuurkan way iska hiba ilaahay bixiyo aniga oo iskuulka dhigta waan is ogaa inaan hal abuur leeyahay sababta marka arday leeyahay ardada waxa loo diraa daabuur wax la yiraahdo waxa lagu yiraahdaa soo diyaariya qof walba maalin buu ku qoran yahay ama galaas walba maalin buu ku qoran yahay marka ardada waxay sameyn jireen gabayga raaga ogaas gabayga hebel iyo bisoo qoran jiray laakiin anigu ma soo qoran jirin intaan buug iyo qalin qaato waxaan sameyn jiray gabay waxbarashada ka hadlaaya mid waxa loo oranaya akhlaaqda ka hadlaaya kadibna waan soo jeedin jiray waana lala dhici jiray gabadha waxaan is ogaadayba inaan sameyn karo suugaan fara badan oo yani bulshada wax u tarta anigana yani kulay qofka sameeyay aan noqdo on magac iyo qiimo ku yeesho marka xilligaas baan is ogaaday walaal inaan wax sameyn karo waa gartay waxaadna dabadeedna guda gashay suugaantii inaad samaysid kalsooni baad dabcan ku gashay ardaydii baad ka hor hadashay habeenkii dhan baad wax qori jirtay waxaad adigu leedahay baad la imaan jirtay meesha ardayda kale ay la imaan jireen heesihii hore iyo suugaantii hore ay wax ku soo guurin jireen halaqaaday oo ogaatay inaad maaragtay hal abuur leedahay dabadeedna goormaad go'aansatay inaad bulshada la soo hor istaagtid oo baahisid waxaan maxaad tiri walaal hadda xafidiigu raallihow daawadayaasha waxaan jeclaan u sheego meesha ismaan ku sugan tahay gadaasheeda dad baa ku sheekaysanaya marka qaarkood waxa laga yaabaa inaan ismaqlo hadda waa maqashaa ismaan haa walaal waa ku maqlaa goorma ayaad go'aansatay baan ku yidhi inaad dibadda ula soo baxdid hal abuurkaaga oo bulshada la wada cabdi xaafid walaalo sanadihii ugu dambeeyay adiga 4 sano ama 3 sano ugu dambeysay waliba intaan jaamacadda dhiganayay waxaan is arkay inaan awood hal abuur leeyahay markay horena waxaan ku fiicnaa dadka jecel inay dadka wax u sheegaan ama fakaara ka hadalka aad u jecel baan ahaan jiray oo haddii 100 qof maanta la yiraahdo adaa maanta hadalkooda ku qoran ama qodbadooda ku qoran waa jeedi jiray waan qancin jiray ilaahay wax qanciyo laakiin waan isku day jiray alxamdulillah marka waxaan ogaaday inaan yani aan suugaantaas bal aan dadka la wadaagi karo marka 3 sano ugu dambeysay baan isku dayay inaan dadka la wadaago
walow si anigu aan islahayn inay ku gudubtay meelo badan tayo aan arkay baayadii oo yaacday isla laan anigu saas laakiin moojide waxan baa ka hayn oo kaasa waa gartay waxa jirtay wiil ku yiri aan ku dhoofiyo qurbaha aan kula aado halka ka soo tago Soomaaliya ka soo tago sheekadii buuhoodlana ay salka ku haysay bal wiilkaas muxuu damacsanaa saysa sheekadu ku bilaabatay waan maadsantahay cabdihaafido walaalo qofku markuu social media galo runtii wuxuu baranayaa bulsho kala duwan wuxuu noqonayaa qof yani dad qof walba baranaya badana ama qof walba uu soo raadinayo lala hadlayo marka wiilkan waxaan iska baranay social media-ha aad baan marka waxaan u noqonay dad walaalo ah oo isdhex galay oo kaftan wadaaga oo dee in badan sheekaysta marka hameenada kamid ah annagoo iska kaftamayna istaaqbul magaalada Muqdisho baa waxa ka dhacay qarax annagoo sheekaysanayno intaana sheekaysan ka hor yani magaalada qarax ka dhacay marka wuu soo wacay wuu iwaayay markuu iwaayay wuxuu dhahay hadhow oo kale tabaan teleefonkii markuu uu dansanaa baan daaray uu soo wacay markaasuu aad u walwalsan soo isma walaal qarax baa dhacay haad war haysaa sanfur walaalo wan maqlay baan ku laakiin wax saas kaloo ogi سيقول ولا التلفون كقول السنة واحد سرعة ولا لك عينات سكر ما الحمد لله والنولا هاي مكابر يقول ولا على آد بكاقول ولي ولا هذا اسمه هاني أنا كلك بسمين ماشي أنا تقولش تكتي سانكور ولا حاجة قبتها أنا ما باسبور ملا هالسنة سيقولي مركب ويقولي ولا له حتى أنا كاك هي أفكر من أردن ولا كم سوى بحيسير كور أنا بقول كفتم بانو قاتل لكن يقول صار نقطة هذا الكلام صار نقطة haddaan ka wada afrikadan kuma soo baxay sida ka warsan ku walaal hay'adda anigu Soomaaliyeed baan ahay wadankana wali kama bixinin meel kale oo maanta ama dhaqankeeda aqaan ama maartay susaarkeeda aan aqaanana ma garanayo waxaan aaminsanahay in wadanka asaga la joogo oo halabuur laga samaysto ama business ama wax dhalinyaradu inay wadankooda ay ka samaystaan maadaama ay xor u yihiin ayaga wadanka iska leeyihiin oo ay sanahay wadan maanta ay maartay ay ku joogaan oo kale soo passport marka doodeer ka dib oo na dhex martay aniga inaan in badan aan aad maartay isku celcelin waxaan ku yiri ka waran walaalo gabar hadaad heli lahayd wadanka inta ku keenta kugu jeclaata soo dalxiisista ku barta nin wadankan aad u baran baa tahay ina kuna heer buu hoodo ah marka wuxuu ku yiri wallahi way fiicnaan lahayd سانكوري بالهذا الكلام إن ده مريبان إن شاء الله كسمين جواناته سيدا سيكوي ماتي وان كسمي مركا أنا تسالة إسكو سوقاتي وحاير حدام كوكو شعلان لها ودن فأنكو تلحيسين لها سيدا بحال كي تشوف بمقان لها مركا تحدث وحاي لها هاي كودي شعيل بانكدي يعني إنا كانوا دي شعيل نقمد حين لكن إنا نشعله كاليبان كدي maadaama aan wuxuu ay yihiin tusaale marka waxa yiri hadaad buura fuushiya hadaad raacdo baabuur ragga badi ahaantood hadaad beer ka noqoto dad bogin tirahdaba midka calamku beegsado boqorka xukumayo adoo bari la hadal baad bixisaa naftaada bistihiisa qaada aan yara bayaan soo barta aan u jeediyo warka baalka taagtee oo aragtidaadii aroon baran jacaylada buugooda wali qorin oo badiba sheekada been iyo u qaba hadal isbariidinteeni soo kan bastay iyo noqday ruux bar loo dhigay dooliyowga caashaqa waxaan bogan lahaa jiif naftu raaxa baran lay adigoo bu'aaliyo bartamaha wajeer iyo beledweyne iyo luuq boosaas deeqiyo dhulka bilicda wacanay maydigu ka bixi jiray barqa ila socdaal kala oo sida aan dhulka ugu wada dalxiisno way dheer tahay oo waxay leedahay عبد العال واكم غاسفان marka sixdu way dheer tahay horta ma soo gabagabayn karno wadanka oo dhan bay aad u maraysaa marka in yar baan ku dareeyay waxay leedahay buuraha sanaaga quruxdooda loo bogay badan iyo hadaatimo bahdi ceeri gaabo intuu robarqadi helay baliyada xareedii baalaha ka joogaan baalaleydu goorta bidbidaysa meelaha nabad lagu bariisto barqadaragta xooluhu dhirta hoos ka soo baxay baalbaalo jiifaan barbaarkuna gadoodii goor hamayn bad ay tahay haasawa loo baxay gaarabidoodkuna nuurka ee babaaldiga bixinayay fiidkii balwada iyo cayaaraha batarka iyo dhaantada loo baxay heelada oo barisamaadkii sidiisii u bilawaan ayaan baashahayga u bilcil hoosta sheekada ku bilaabilaayo sidii boqor la doortaa dadka badi ahaanto ku baafin laayeen
إبر هذا الكوسل لهين نيو ساعة لقول رادين لها كسر كمر قبرك وقرتي اسمها مع صلاة نكا أضيقا بوهود لئيو دلقا قادو جوغينات كله لا تلو قرباء إنه هالكاس آد كيوغو ليستي سقروح وضنا على الأردو وقلقتي حقيقة واحد دائرة الصوماليات سنة دلقوضا يدلقوضا جعليهين أين الربان إنه دلقوضا وحكون قضان أنيقا يدلقوضا بدلو قرباء الجوغي كوي قوي حقيقة ويدي رجل نيسا waxay kaloo dhiirigelinaysaa da'yarta qaxaysa ee cararaysa in dalkooda wax lagu noqon karo waana kaaga mahadcelinayaa fikirkaas waxaana jeclahay bulshada Soomaaliyeed inay la qabto laakiin waxaa jirta arrin aan wax ka weydiiyo oo anagu haddaan ragnahay aan madaxa ka ruxnay caawana aan jeclayn inaan sii daayo fursadaas maxaa yeelay ragga Soomaaliyeed oo baa gowda iga saaraya waxay jirtay maanta raggii lacagta lahaa aad ka tirisay oo aad tireen inaan lacag haynin ama farxiye aan haynin shaqo isku maleeyay oo haddaan nahay qaxooti iyo dadka aan waxba haysanin ee gudaha dalka jooga ee ragga ah arrintaas aad baa madaxa uga ruxnay marka bal walaalay naga baxaaw soo dhow عبد حافظ أنا قلت كيف قصة بيتها صوت الرق بدر يقع عربي أنا سوء عشرة الغيامة أنت أسوأ كفتة waxaa loo dhanay walaalo horta waad mahadsantahay qofku markuu halabuur yahay wuxuu wax ka curiyaa environmentiga uu ku nool yahay ama deegaanka markaas uu joogo ama dalku ku nool yahay bulshadiisu sida ay u dhaqmayaan ama waxyaalaha ka fikiciyo oo arko aniga mar badan waxaan arkay bahalkan interestiga la yiraahdo ama in lacag la isku xulanayo ama hablihi qurux lagu xulanayo ama raggii lacag lagu xulanayo waanu dhafagalay marka waxaan iska sameeyay ma ahayn waxaan ogaabay inay saameyn yeelanayso markii hore anigu runtii ma lacag jeceli ninka aan gursan doonana shuruud kama dhigi doono inaan dhaho lacag badan baan rabaa runtii ma dhahayo يعني هرينا وانو شيغay mar hore aan wareysi bixiyana waan sheegay oo targetkaygu ma saarna nin lacag leh laakiin waxaan ogsoonahay waqti xaadirkan jira waaqica in la isku xusho bahashaas maadaama marka la isku xulanayo deegaanka aad ugu badatay hablii waxaan kulay hadeynaan maaragtay ii sheegayna iska daynay niyo waxa iska cadaysta waxa tiraahdaa maxaa haysataa ninka ku dhahaday kulay baadina wixii beetimal dhahan loo qaadanayo mar waliba aan iska daynin marka tixdaas saasay ku timid ragga waxaan leeyahay iga cararmiya soo dhawaada kuwiina uu fakaday waagartay halkaas intaan maasadaas aad noo xusanin su'aal yar aan ku weydiiyo oo aan jeclahay ragga caawa jeclaan lahaa inay ku weydiiyaan haddii laba wiil oo Soomaaliyeed oo midna uu lacag haysto laga yaabo inuu dumar kala guursanayo ama ay xisaabta ugu jirto ama hadda uu qabo iyo wiil aan waxba haysanin laakiin dhab ku jecel oo diyaar u ah gogoshaas iyo garowgaas inay isla cuntaan xaaladda ku jiro waa arkaysaa gabadha hadday lacag iyo adduun haysato wax badan baa u sahlan haddii kalena noloshii adkeeda ku bagayd waa la wada yaqaanaa labadaa nin keebaad raaci lahayd caawa hadduu calaf ku galay labada nin marka labada nin ma i wada rabaan oo yani labadaba jacaylku waa ka dhab mise ninbu jacaylku jiraan ninna yani xoolihiisuu saaran yahay kan faqriga ah waxa weeye jacayl laba ayaa haya kana uu ku jecel yahay laakiin dabcan kala jacayl badan oo kan faqrigaaba aad ku jecel laakiin kan wuxuu aaminsan yahay lacagtiisa inuu jacayl ku gadan karo wuxuu aaminsan yahay waxa laga yaabaa inuu jacayl laba kuu qabo laakiin kii lacagta lahaa iyo kan lacagta lahayn haddii labadooba isku si ku jecel yihiin keebaad raaci عبد الحافظ لو اي كلا صار لو ان هذا اسكو سي جعل يمين كلا دورشان لهي لكن هذه حل ميدي labada nin haday si ii jecel yihiin shuruudaha qofka lagu xusho oo diintaada waxay dhahaysaa wali ma laha waa qofku inuu xoolo leeyahay marka ceeb ma leh waa waxa la kugu dir ninka lacagta raacaya laakiin hadduu say jecelayn wiilkaas yar oo miskiinka raacaya maasadii loogu dhufo warka waad maadsantahay tixda waxay leedahay marba kan kistiya kumanaan ka helo kuma qayliye korkaan saaraya ileen kooshin iyo waa kaahiye kayfiya tixda loo yara kaca jeebku samraahan ka korinayay niman koob ahayn yaa ka koobin kara halka caydkan iyo hiisahan ka shbacay waxa korinaya kor u qaadi kara
kaabayaasha iyo boorsooyinkoo lagu kiishay mani haddaad keeni lahayd 1 milyan kasbashiya cishqaad koombaysan lahayd annakaa horaan kuu karin lahaa kumbus iyo digaag saad furuska iyo kaabash cuni lahayd ku kastaba ohow oday kaahin iyo ku bidaar la noqo xildhibaan kibriya kala xirano noqo oday sii kufoo ku kutubo ushiyo koomba miisa noqo ku qudaar gadiyo koo qalin sitaba kulligiin dhammaan kaashweynaha iga kaafin karaa midna kaamil iyo ma ihi kordahab kolba kii nimcada igu korinayaan kaalmaynayaa haddaan yara karhana ku kaloo ka wacan baan keenayaa taas walaalo waxaa jirta jeclaa inaan maadaama arrimahan lacagta iyo guurka aan ku dhex jirno talenty ah educated ah karti leh duruufo badan soo martay shirqoolkii haweenayaadu weyd ka badbaaday oo tashatay maasha allah welina single baa tahay oo calafkii iyo qadartii ilaahay baa meel taalla oo kaas dabcan mari karo laakiin haddii aan kugu soo yaro dhoweeyo waana hubaa daawadayaashu inay aad u xiiseynayaan su-aasha inay ku weydiiyaan ismaxaanay rag maxaad ninka aad jeceshahay mustaqbalka nolosha la wadaagtid 3 shay oo aad ragga kaga xulan lahayd oo kooban nooga yara dhac وسؤال هذاك عبدالحافظ لكن ما دام هذه ويديسي وددنا داونايا واستجوان كجوابايا horta inta aanan u gelinin inaan qofka xusho waxaan rabaa inaan kuu sheego qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii dooro ku qanacsanaan doona kama shalayn doono taamarka laga yimaado 3 arrimood horta qofku inuu aqoon leeyahay oo ku xulan lahaa sababtoo ah وعجيب قفو يعني قف أقول لي قف كلام سنة إنه قف إدانين وقت هذا الكاس كرابة أو إيبا هنو يمارتي شيء قيمة هي كرنا يو إشعال أو كرابة ويهنا وانكو دورا لها إن نسفهم كرنو أو قف نلاش عن سلقة هذه كرنو سلس عم كرنو سلتان قاعد كرنو إسفهم كاديل وعيو وحبلا مهلو ما كأنه يقف عن إسفهم كرنو نلاش عن سلط دورنا إنه يهنا وان قادن لها حبدا ugu dambaysa waa inuu yahay nin aan arrimaha iga social media ay gabadha dunida ka sheebanay goor istaagin inuu yahay oo marka horumarkayga iyo waxaan ku socdo kulay xumaan ma samayn doono biidin ilaa laakiin meesha aan hiigsanayo aan u socdo inuu igu hor istaagi doonin waa soo dhaweynaya ninkaas marka inuu sabab bulshadii iyo dadka isku xirnaydeen ilaa hadda anagu intaan ku arkaynay social media xumaan kuma nanaco suugaan iyo ka hadlayaan ku aragnay iyo dhaqankii iyo xaaladda markaa taagan qof buriyo yiraahda laguma arki karo laguma maqli karo inka adaga kulama jaan qaadi karo aad iyo rag fara badan oo arjiyo hore u soo qortay baa jira waxaan jecelahay wixii hore inaad qubtaan sirtii waa idin siinay arjiyo fresh la imaada hadda arjiyadaas waxaan ciwaan uga dhigaysaan idinka yaqaana waxaa jira heesa aad leedahay laftigeeda ayaa jirta waxaan intaan ogahay 2 shakhsi ayaa ka mid ah dadka heesaha qaada oo ka mid yahay Ismaaciil Aabka iyo waliba Xamdi Bilan labadaas bal nooga yara anagoo waqtiga baaqaaminayna dilayna waad maadsan tahay runtii waa heesu waa qayb ka mid ah suugaanta waa sanadan hadda lagu jiro baan sameeyay cabdixaafid iska dareemaysaaye waxaa la yidhi qofku markuu dhalinyaro yahay oo dooq iyo nolosha xulashada ku jirana waa lagu dhex shanlaysanaya walaa jacayl baa galay baan malaynaya marka labada heesood labada fanaano aad u cod macaan oo qaaliya ba qaaday waxaana ka sameeyay kolay labaduba waa jacayl marka xaalado maartay markaas jiro kolay aniga xaggayga wakaas وعجبتي طبعا حالها صد كسميسي مركا وحن جعلنا فيديو حالها سوما لقيتو قولي هدا وحوي ممر على مسرات كوديا ولي كودن بيا جعل بالله بكتا ولا لسان بان كجرنا سهن يقرات قادي وحبا isdaba socdo ma garanaysa waxa damir dhalay aday jiraan kulli way muuqan lahaayeen ma yihiin naag waxaadu qarsoomi karaan
kolley waa wax weyn baan rajaynayaa waxaygu marka waa xaalado la raadhayo lagu jiro soo jiidashadoodii iyo la socodkoodii hala hakiya sida insha allah aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa aad baan maaragtay u danaynaynay inaan maaragtay mar un aanu fariisano mana u malaynayo inuu yahay kii u horreeyey aad baan kuugu mahadcelinayaa waxaan jeclahay gabagabadii inaan hal daqiiqa kusoo koobtid gabdhaha yaryar ee soomaalida ee qurxaha badan ilaan gabar foolxun oo soomaali ilaahay ma abuurina soomaalida waxay tidhaahdaa ilaahay abuurtiisa ku eedla indhihii ku arkaana ayaan daranoo mararka qaarkood rag dhaha dumarka waa foolxun tahay hadalla foolxun ku dhaha waa jiraan laakiin ilaahay waa ku eedla yahay gabdhaha yaryar ee quruxda badan ee tiktoka jooga xubnahooda qaarkood maaragtay keliya ay kaga dhigtay oo quruxdoodii iyo qiimahoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii laga yaabo inay markaa ay hareer mareen xaaladaha jiro oo social media abuuray awgeed gabar yar baa tahay laftigaagu maxaa kuga talin lahayd cabdi xaafid aad baad u mahadsan tahay horta ilaahay hana wada asturo wallaahi ilaahay baa wax asturo walaalle waxaan kula talin lahaa kala ahaan ismahaan haddii laygu yidhahdo horta insha allah waan ka samayn doonaa suugaan wacyigelina gabdhahana waxaan leeyahay diintu waa naseexo waad wanaagsan tihiine kasoo wanaagsanaadaan leeyahay kasoo noqda insha allah walaal ha isqaawinina is astura xijaabka jirkiina ku daboola waad wanaagsan tihiine kasii wanaagsanaada maxmedin sidaa baan leeyahay waa gartay waxaan jeclahay intaa kusoo gabagabo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga aanu siisay is aragti dambe oo xiisala ayaan jeclay inaan mar kala kulano iyo barnaamij kale ku kulano boqolkiiba boqol oo ku mahadcelinaya waxaan kaloo jeclahay inaan mahadceliyo Mrs. Xiis Xarago oo iyadoo laftigeedu qayb weyn barnaamijkan ka ahayd oo ka shaqaysay inaan isugu xirmi lahayn muddo dheer kasoo shaqaynaysay allah kareemay aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaa kula jooga mawlid iyo ayaan oo laftigoodu qayb weyn ka ah dhinacaaga waa ku mahadcelinayaa oo mahadcelinaynaa intaanu dib kale ugu kulmi doono waxaanu sugnaa waa sugaan iyo arooskaagii oo dunidu ay maqasho waxa ka dhaca waxaan ku rajaynayaa fara badan iyo waxbarashadaada inaad ku guulaysato waa mahadsan tahay ismahan guulaysa walaal mahadsanid